Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalk Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa yiri hadalkan haddii 8 Febraayo sanadka 2021 la gaaro ay doorasho dhici wayso waxaa dhici doona wixii dhacay 2016. waa su'aal fiican 8 February wixii 2016 dhacay 2016 maxaa dhacay isla wixii 2016 dhacay waa la socoteen 2016 baarlamaanka federaalka wuxuu ku ekaa bishii 8aad waa laga gudbay bishii 9aad 10aad 11aad 12aad baarlamaanka 27 December ayaa la doortay aan ka bilowno marka laga bilaabo aan ka bilowno 8aad oo waqti uu ka dhamaan lahaa 9aad 10aad 11 12 January February farmaajo la doortay waa 6 bilood oo madaxweyne Xasan Sheikh uu joogay wuxuu ku joogay sharci la'aan kuma joogin madaxweynaha wuxuu ku joogay sharci number 20 ama number 20 ayuu ku joogay oo asaga uu saxiixay isla sharcigii oo xilligaasi madaxweyne Xasan uu saxiixay ayaan annaga tixraacaynay iyo qodobkii 6aad oo la bedelay isla tii haddana madaxweynaha dekreeto ku soo saaray marka 2016 sidii Xasan Sheikh uu ahaa hay'adaha la saaxiibkii ayuu ahaanaya farmaajo 2021 ilaa madaxweyne uu ka yimaado uu joogay Ashan ayuu ka jawaabay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan markii shirkiga wada tashiga aragti wadaagga ee macadka Heritage ee ku qabtay magaalada Garowe caasimadda Puntland. Su'aashan ayaa imaanaysa marka dowladda Soomaaliya ay ku egtahay 8 February 2021 in ay ku darsanayso xilligeeda. Cabdinaasir Maxamuud Xaaji Axmed